السلام عليكم. موضوع maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa aabbaha cilmiga caafimaadka casriga, qoraa, amiirka dhaqaatiirta, faylasoof islaami ah, waana aqoonyahanka islaamka ee ibnu siina. ku soo dhawaada mowduuca maanta. magaciisa rasmiga waa abu cali al-xuseyn ibnu cabdillaah ibnu siina. magacan siinaana waa awoo aad uga durugsan. waxa uu dhashay 22 agoosto 982 miilaadiga oo ku aadan 370 hijriyada, tuulo u dhow Bukhaara oo maanta loo yaqaano Usbakistaan, waxaana laatiinka looga yaqaanaa Afisiyeena. aabihiis waxa uu ahaa hogaamiyaha tuuladaas, gurigiisana waxa uu ahaa meesha ay ku kulmaan ragga aqoonta leh ee xilligaa. aabihiis ayaana u bilaabay barista aqoonta, aadna waa uu maskax badnaa. sida ku xusan taariikh nololeedkiisana, isagoo aan 10 sano gaarinba wuxuu xifdiyey qur-aanka kariimka iyo gabayo fara badan. waxa uuna ku soo beegmay waayihii loo yaqaanay casrigii dahabiga ee islaamka. waxa uuna xisaabta artimeediga ka bartay nin hindi dukaanle ka ahaa tuuladiisa, laguna magacaabi jiray maxamuud masaayi. waxa uuna iskaga kala gudbay una socdaalay magaalooyinkii waaweynaa islaamka ee waayaha sheeganaa. waxa uu bilaabay inuu barto aqoonta caafimaadka isagoo 16 sano jir ah. aragti ahaan iyo farsamo ahaanba waa uu qabatimay, isaga ayaana sii ballaariyey. badankana dadka bilaash ayuu ku daaweyn jiray, heer uu gaaray in dadka tuuladiisa ay isku tilmaamaan. sidoo kale wuxuu ka bartay fiqiga islaamka caalimkii weynaa ismaaciil al-saahid. dabadeedna waxa uu ka bartay aqoonta falsafadda ee Aristotle logic, saynisyahan la yidhaahdo cabdullaahi nataali. indhogaradnimadiisana waxay ibnu siina u horseeday in macallinkiisi aad ula yaabo, kadib markii uu sahmiyey qodobo cusub oo aan isaga hortiis arag. 18 jir marka uu gaarayna waxa uu noqday caalim iyo dhakhtar bulshada xilligiisa ay isku tilmaamaan. ibnu siina wuxuu mar daweeyey amiirkii Bukhaara, laguna magacaabi jiray nuux ibnu mansuur al-sumaani, oo uu ka daweeyey cudur dhaqaatiirta oo dhan u taagi weyday. markii uu amiirkii bogsadayna waxaa lagu abaalmariyey in maktabadda boqortooyada wax ka akhristo. maktabaddaasna waxay ahayd kuyoogii waayahaas ugu camirnaa ee caalamka. markuu 21 jirsadayna wuxuu wax ka qoray cilmiyada kale ah xisaabta, xidigaha, fiisigiska iyo gabayada. ibnu siina wuxuu kaloo noqday kuyoogii ugu caansanaa uguna saamaynta badnaa falsafadda sayniska ee dunida islaamka qarnigii dhexe. waxyaabaha uu ibnu siina ku soo kordhiyey cilmiga caafimaadkana waxaa ka mid ahaa, wuxuu qeexay waxa ay tahay cudurrada safmareenka. waxauna ahaa aqoonyaankii adduunka ugu horreeyey ee isticmaalay karantiimaynta dadka buka, una bixiyey al-albiciiniya. waa halka ay ka timid kwarantiin, oo asalkeedu yahay kwaranta, oo ahaa afka talyaaniga oo ka dhigan 40. waxa uu sharaxay qaababka ay u dhacaan xanuunada ku dhaca maskaxda, brain attack. waxa uu qeexay 670 kaniini oo faa'iido leh. waxa uu wax badan ku soo kordhiyey cilmiga anatomiga. waxa uu sidoo kale daahfeeday astaamaha iyo daaweynta dhagaxa kaadimareenka xiraa. waxa uu qoray buugaag ka badan 400. inta la ogyahayna waxaa haatan la hayaa 240 buug. buugaagta u qoray waxaa ugu caansanaa buug la yidhaahdo al-qaanuun iyo the book of healing. culimo badan ayaa ibnu siina ku tuhmay gaalnimo, waxaana ka mid ahaa al-ghazaali, ibnu cimaad al-xambali, ibnu taymimiya iyo ibnu qayim, balse ilaahay ayaa og. xitaa waxaa kaloo jirtay aragti ku xamanaysa inuu ahaa shiici ismaaciiliya, balse ilaahay ayaa og. aakhirkii wuxuu dhintay bil ramadaan 428 hijriyada, kuna beegan 1037 miilaadiga, isaga oo 58 sano jir ah. waxaana lagu aasay magaalada hamadaan ee dalka iiraan. xikmadaha cajiibka ee laga bartay ibnu siina waxaa ka mid ah caloosha ka jira cuntada badan, maxaa yeelay cudurrada ugu badan waxay ka dhashaan cuntada dheeraadka. caqliga bini'aadamka waa awood ka mid a awoodaha nafta ee aan la dheelaysan. caloosha hadday cuntada ka badato, caqliga ayaa hurdo. waa halka Soomaalidu ay ka tiraahdo calool dhargan calool baahan uma baqdo. u gargaaridda xaqa waa sharaf, u gargaaridda baadilkana waa xadgudub. murugtu waa cudurka barkiis, deganaashahana waa dawada barkeyd. والسلام عليكم.